بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم marka hore waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh salaan kadib waxaan rabaa saaka shirkan jirayd wuxuu ku saabsan yahay afar qodob inaan kaga hadalno insha Allah number 1 xoreynta gobolka Sool oo inoo ah iyadu lambarka koowaad mar walba sida xuduudaha Puntland loo sugi lahaa number 2 diyaasbarada dadka dalka jooga iyo dadka dibadda oo maanta aan kala cadeyno arintooda doorashada Puntland iyo doorka dhalinyaradu ku leedahay hoggaanka dalka afarta qodob baan rabnaa insha Allah inaan kaga hadalno marka u horeysa waxaan bogaadinayaa dawladda Puntland iyo shacabkaba arinta ay kaga jiraan xoreynta gobolka Sool iyo xuduudaha Puntland aad iyo aad baan ugu dhiirigelinayaa ciidamadu inay garab istaagaan dawladda inay shacabku garab istaagaan ciidamadooda dalkana la xoreeyo dawladana waxaan ka codsanaynaa si degdeg ah inay dalka maqan soo celiso xuduudaha Puntland u sugto qodobka labaad waxaan rabaa inaan maanta ka hadlo diyaasbarada muddooyinkii dhammo dhan waxa Puntland ku soo qolqolaya ama dibadaha iska sharaxayay musharaxiin u tartamaysa xilka 2019 ee doorashada Puntland 8 January waxaan rabaa halkaa inaan kelmad ka iraahdo horta waxa la soo gaaray xilligii dadka dalka jooga ay xilka qaban lahaayeen oo ku ugu haboonayd sababtoo ah dalka nimaan waxba ka ogeyn waxba uma qaban karo taa waxa ka sii daran dhalinyaradeenni iyo aqoon-yahankeennii dalka wax u bartay oo la rabay inay dalkana u faa'iideeyaan iyana ka faa'iideystaan maalin walba inay ku dhimanayaan badaha iyagoo baasaboor raadinaya taasoo ay kaliftay nimaan baasaboor sidan ba xilin aan loo dhiibin sidaa darteed maanta reer Puntland waxay diyaar u yihiin nin dalka gudihiisa jooga oo la yaqaan wixii uu qabtay oo waliba dhalinyaro ah oo ciidan ah oo wadanaya in la doorto nin dibad ka yimina aan la dooran iska daa madaxweyne ee madax qaybeed ilaa madaxweyne inta u dhaxaysa midna inaan laga dhigin anigu ma diidayo dadka reer Puntland u dhashay oo banaanka jira si gaar ah u xumayn mayo fartan ugu fiiqmayo laakiin waxaan rabnaa 10 sano ugu yaraan markii ay joogaan ilmahoodana keenaan inay ka qayb qaataan insha Allah isu soo taagaan xilalka la midka ah hoggaanka dalka iyo wixii la mid ah inta ka horeysa wadani looma aqoonsan karo sababtoo ah nin baasaboor baadiye sita wadankaana aan waxba ka ogeyn haddaad wax u dhibatay haddaad adigu gaari aad mugdi ku kaxaysidaan dhaba lahayn habeenkii inuu dadays kala dhaco khasab bay noqonaysaa marka arrimahaas ayuu shirkeenu ku saabsan yahay doorka dhalinyarada doorashada Puntland insha Allah sidii madaxweynaha Puntland ba ku dhawaaqay hadda ka hor xilligeeda inaysan dhaafin baan iyadana ta'kiidinaynaa qodobkaas madaxweynuhu yiri maadaama dastuurkeena iyo aragtida dadka madaxweynaha ku dhawaaqay intaba la isku raacsan yahay iyaduna inay 8 January aysan dhaafin xilliga dhacdo baan rajaynaynaa doorka dhalinyarada waxaan u soo jeedinayaa inay dalkooda u soo jeensadaan intay badaha ku dhimanayaan maantana nin ku haboon oo dalka joogay oo ciidan ah oo dalka iyo dadka anfici kara oo wadaniga oo wuxuu qabtay la yaqaan waxay la tahay nisbaynu ku wada fadhinaayo waa is wada ognahay nin waliba wixii uu yahay inay maanta ka faa'iideystaan oo dadku waxay yiraahdaan dhalinyaradu waa madaxdii berri oo waa madaxdii muxuu ahaa mustaqbalka anigu oran maayo madaxdii maanta weeye oo waliba galin hore boqolkiiba 70 tirada dadka dhalinyaro weeye rag iyo dumarba gabdhaha iyo wiilasha wax bartay waxaan leeyahay dalkiina ka faa'iideysta dadka dibadana sidaasaan leeyahay hadalkaygii waxaan rabaa insha Allah inaan meelahaas ku soo ururiyo way afayeen tan marka ka hadlaysay diaspora oo kale markii sharaxaad laga hadlo musharaxnimada waxa sheegtay qof dalka gudihiisa in loo baahan yahay iyadoo la lahayd xilligan ku hadlay 2019 in uu tartamo shaqada madaxtinimo waa su'aal fiican Cabdi Axmed mahadsanid waxaan oran lahaa wax dadku igu barteen hadda waajiday oo suugaaniga la yiraahdo waxaan oran lahaa dalka waxa anfici kara military dress liyo general deiraho darajada wax qabadkii diiwaanka galay iyo taariikhda daab ku leh dadka reer Puntland iyo
shacabkuna ku dirsado dalka waxaa anfici karaa ciidamada difaacyada nin daryeeli kara oo dirdir iyo qabiil iyo ka ilaasha duul hebel shacabkana u daacada intaasaan oran lahaa waana noolaya nin la yidhaahdo haddaan kuusii balballaariyo jenaraal siciid dheere sarreeye guuto siciid maxamed xirsi waa ugu walqalay magac la yidhaahdo asad annaga waxaan u bixiya noolaya wixii runta iyo ilkahaba waa la caddeeyaa baa leeyihi nabadoon taa markaan ka gudubno waxaa jira qolo isima oo ka yimid somalilan oo sheegay inay arrin nabdeed wadaan arrintaas maxay adiga kula tahay muuqaal ahaan maxamed siciid waa mahadsan tahay su-aashaasi waa su-aal fiican waxaan u malaynayaa maanta xilliga aynu joogno nimanka la yidhaahdo habar awal iyo habar jeclo oo jeegaan laysku yidhaahdo wax wada hadalay inaysan naga dhexayn intii ay joogaan xadka puntland ilaa ay labada gaatama daba maraan oo xagga u dhaafaan wax hadalahu naga dhexayn kara ma jiraan noocay rabaan ha ahaado waa tahay nabadoone xaaladda maanta taagan ma la oran karaa doorka dhalinyarada ayaa ka maqan waa la oran karaa dhalinyarada been baa lagu maaweeliyey waxaa la yidhi mustaqbalkii waxaa tihiin madaxdii mustaqbalka waxaa tihiin madaxdii berri laakiin maaha madaxdii maanta weeye oo weliba galin hore ah madaxdii berri weeye tii saa dambe weeye tii saa kun weeye tii sida taal weeye dhalinyaradu dalka iyagaa wax u bartay sidaynu wada ognahay Soomaaliya iyadoo gumaysi ku jirta gumaysigii waxaa ka saaray 13 wiil oo dhalinyaro ah oo aqoon-yahan ah oo da'dooda aan garan karo mid waliba inta uu jiray sidaa darteed anigu waxaan oran lahaa dhalinyaro qof aan ahayn bayaan xil loo dhiibay maantana dad dhalinyaro ah oo wax qabtay baa dalka jooga oo ka mid yahay ninkii hadda aan magacaabayay musharaxnimo uu ku dhawaaqay ma aan maqal laakiin hadduusan xataa musharaxayn waxaan ka codsanaynaa anoo ku hadlaya afkii shacabka Puntland dhammaan kii nabadoonnada in uu isa soo sharaxo maadaama dalkiisa iyo dadkiisu u baahan yihiin.